السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال دمانتين codkayga iyo muuqaalkayga halkoo idinkaga soo gaarayo ku soo dhawaada barnaamijkeena fanka iyo suugaanta oo idinkaga diyaarnay stuudiyadeena magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. Daawadayaal barnaamijkeena waxaa marti noogu ah Cabdirasaaq Cusmaan Cabdi oo ku magac dheer AK Qanciye. Cabdirasaaq ku soo dhawow mar kale barnaamijka fanka iyo suugaanta ee TV-ga Kalsan. عجواب هذا ما سنتاي برامجك قروح بدن TV كلسن maanta ugu martiqaadana aad ugu maasantahay waan ku dhawahay bal ugu horeen dadka ku daawanayo waxaad u sheegtaa AK Qanciye waa qof ma taariikhdiisa iyo taariikh nololeedkiisa iyo halkuu ku dhashay عجواب هذا ما سنتاي brother AK Qanciye waa qofka horta u jeedaan magacaas AK Qanciye ka suko ana magacayga caadiga waa Cabdirasaaq Cusmaan Cabdi waxaan ku dhashay xaafadda Xamar Bile degmada Wardhiigley Muqdisho kulay dadka Muqdisho macnaha ku noolaa garanayo meeshaas ay nolosheeda ka soo bilaabatay xaafadaas ayaa ku soo barbaaray xilligii macnaha dugsiga quraanka dhiganay ilaa iyo iskuulka sare ugu soo baxay ilaa iyo heer jaamacadeed aan ka gaaro meeshaas macnaha magacayga iyo maaragtay nolosheeda ay ka soo bilaabatay dadka qaar waxay ku yaqaanaan AK Qanciye balse waxaan u maleynayaa magacaaga saddexan inaysiin aad iyo aad sax waaye oo AK Qanciye inta badan sanadadii ugu dambeeyay fankan iyo holahan aan soo galgalay magacaas fanka ku soo galay oo macnaha wuxuu ii noqday magac macnaha lagu yaqaano oo bulshada ay taqaano laakiin magacayga caadiga dadka inta badan ma wada yaqaanaan ilaa ma dad dhifa oo maaragtay ani shakhsi ahaan ii yaqaano mooyaane magacayga marka waa Cabdirasaaq Cusmaan Cabdi. Okay dhinaca fanka goormaad ku soo biirtay walaalihi horta fanka waxa ku soo biiray 2013 xilligii oo waagii qixi laga soo laalaabanayay wadanka oo isku burbursanaa xilliyada safanka ku soo biiray qaab folk dance oo la culture iyo waxaas ku soo galay oo la team waxa ka tirsanaa oo culture-ka iyo waxaas macnaha dhalinyaro culture-ka iyo waxaas ciyaartida dhaantada oo kale iyo lisaqada iyo ciyaaraha Soomaalida ay leeyihiin qaab noocaas ku soo galay ilaa ma heerkii markii dambe ogaaday inay heesi karo oo stage soo istaagi kara ay stage case AK intaana barnaamijkeena gudaha u galin bal heesahaagii aad hore u qaaday bal hees kamida bal barnaamijka dadka hurdada aan kaga kicino aad iyo aad way jiraan heeso badan hore u qaaday oo waliba jacayl iyo kuwa daadisa iyo kuwa macnaha iska wadani ayagana hees jacayl arwa marka macnaha heesta oo ileen raabka heesaan ahayn waa qaadi jirtay yaa man raab bas ma aan suugaanteeda waxa waa lagu wareeraa baad safiya marka meel walba oo ku jira marka hees jacayl qac ka siinayna sasan okay dadka hurdada aan ugu kicinayna okay waa dhamaatay aan la socono AK iyo heesto noogu talagalay inuu barnaamijka ku furto waa tahay waa hagaag dacalkii samidii degtay dareenka jacaylku intuu igu dumin kalay idabiib dawadi qalbiga wadnaha dacalkii samidii degtay dareenka jacaylku intuu igu dumin kalay idabiib dawadi qalbiga doqii igu baahaya idanqo jacaylkani dilay adoon iga dawayn ayaa durugtee halkeen ka dayaa doqii igu baahaya idanqo jacaylkani dilay adoon iga dawayn ayaa durugtee halkeen ka dayaa buubaanu sudhee bal yaa igu dara dadab
iyo reer intaanu degnaa waliba la dekayno dushaan saariye waliba la dekayno dushaan saariye duubaanu sudhee bal yaa igu dara dadab iyo reer intaanu degnaa waliba la dekayno dushaan saariye waliba la dekayno dushaan saariye duubaanu sudhee bal yaa igu dara dadab iyo reer intaanu degnaa waliba la dekayno dushaan saariye waliba la dekayno dushaan saariye duubaanu sudhee bal yaa igu dara dadab iyo reer intaanu degnaa waliba la dekayno dushaan saariye waliba la dekayno dushaan saariye hagaag daawadayaal heestaasi wax dareen jecel waxaan filayaa si aad inaad ugu wada bogateen saaq mar kale ku soo dhawow barnaamijka fanka iyo suugaanta ee TV-ga Kalson aad iyo aad cabdiwahaab aad u mahadsantahay saaxiibkay oo ku dhawahay barnaamijka TV-ga Kalson iyo shaqaalaheeda dhammaan inta aad baa ugu wada salaamaya waan ugu mahadcelinayaa jaaniskan quruxda badan ee maanta isla qaadanayna ayaga waan dhawahay walaalkay ma xasuusataa cabdiyow heestii ugu horeysay aad masrax la soo korto yaa man waan xasuustaa aad iyo aad heestii ugu horeysay aan masrax la soo koro waxay hees wadaniya bal ereyadeeda iyo wax noogu taabo bal horta heestaas ereyadeeda waxaa iskale nin la dhaho abwaan cabdiqaadir cabdicarab TM nin saaxiibkay guuleysi biillaha ayaa laxanka ku laxameeyey heestaas waa heestii ugu horeysay aan stage la koro weli stage masraxiyad dowladda ah oo macnaha masraxiyad wadaniyad ah waxay ahayd باي iyo bakooliyo iyo banaadir milicsada basra iyo afgooyo johar ya bidaansada mudug ya kafala beer galgaduud bariisto beled weyne hiiraan berlula ku guursada bari iyo nugaaliyo gedaya u bixitima bakiyoogu oo da-ay bololay ka jebiyaan dalka hooyo bilana baxadiisu weynaa wabiyaal butaaciyo qeyradkiisu badanaa waa hagaag horta heestaas waxaa ku jirta beerlula waxaan u maleynayaa inaan ku maqalnay heestii beledweyn allaha iyo heestii beerlula xis aadan oo u qaaday sidoo kale waxaan dadka qaar waxay moodaan inaad kaliya heesaha raabka qaado ilan fanka heesii kale oo jaceelka ahaa iyo dhankaas kale inaad u jileecdan waan u jeedaa iyo dhalka iyo dhulka ninka fanaanka fanaaniin badan fanaaniintii hore waxaa lagu kasi jiray inay heesaha ka bilaabaan dhulka ay ku amaanaan kadib ee caashaqii iyo halka iyo dareenka ay u saax waa hagaag waxaad moodaa aniga inay soo xissi waa jecel aan jili jiray waa hagaag ayna ugu sii gudubno fan AK cabdiwahaab ka dhaxgalo si dadka xasan aasamatar fanka runaantii oo waqtigu la soo shaqeynayay dadkaas waxa u maleysaa inaan waqti isla soo qaadanay oo by the way macnaha heesaha hadda ani wax igu cusub maahan oo taatiinkii waxa soo bilaabay oo soo bartay horta ani kuma dhalan oo dhal faneed miihi laakiin waa waxa bartay oo maskaxdeeda ay geliyo oo bartay oo practice gareeyo waxa aad uga mahadcelinaa guuleysi biyo afrax iyo xasan greed oo abihiisa oo dad waaweyn oo legendis ah halkan aad baa uga salaamaya fan markaa soo bilaabay dadkii macnaha xasan aad legendka ah dadkaas uu macnaha xasan oo meesha ka soo qaadatay okay waa hagaag tababarkii iyo wixii isla lahaaday si fiican waa la isku qaatay marka dadka waxay iimalayaan raabka inaa maaragtay ku soo baxay marka waxaad leedahay yaa ligu kadsoomin oo heesaha badan oo aqaana dad badan wax badan ka qarsoonayna si wacan weyn arki doonaan kulli weyn daawa doonaan waan soo booqan doontiin yaa gacan ka siiyay inaad fanka ku soo biirto kugu waaniyay inaad masrax soo fuusho ama aad markaas in isla agaato ama isla garato in aad tahay nin bulshada soo hor istaagi karo misna oo madaalada ama fan ka hor qaadi karo oo murtida iyo miraheeda iyo laxmankeeda iswata oo ka soo horjeedi karo aad iyo aad waa su'aal fiican horta aniga markayga hore waxaa aad u xiisay jiray markaa yaraa filimada aad u xiisay jiray ciyaar shaleema iska ahaa shaleemooyinkii waxaas iska fiirfiirsan jiray filimada ka dambeeyay
taas ka sukow markii hadda wadanka burburka dib uga soo laabtay oo fanki iyo wixii dhalinyaradii micnaha Soomaalida hadda waxay noqotay fanki wuxuu u noqday waxa kaliya oo qofka micnaha isku dayo oo na horumar ka sameyn karo ama magac uu ka sameyn karo anigana markaas wiil walaalkayga Allah naxariiste oo uu geeriyooday Allah naxariisto wiilkaas ay fudeeyay inaan ku biiro kooxdaas dhaantada dhaqankaas kadibna saaxiibana guuleedka wiilka hadda ku sheegay garab si microphone-ki dhiirigeliyay idhaay cod leedahay waa heesi kartaa hore u socod kadibna Xasan Gareed iyo macallimiin kale oo fanaaniin iyo abwaano kale Asad Ismaaciil Asad Dheere iyo rag badan oo legendisa Muqdisho hadda micnaha maanta legendiska oo ku nool micnaha kadibna soo garab qabteen oo igu sii dhiirigeliyeen anigana waa sii practicay waa bartay danta keenta marka raabki waa awoodi waayay muusiga caadiga ahaa in micnaha aan ku heeso koos ma jiro nin musician Soomaaliyeed oo daneynaya dhalinyarada inuu garab siiyo ama talentigooda soo saaro ma jiro runta marka laga hadlo musicianada Soomaaliyeed waxa u maleysaa leeda hawada sare inay ka dhaxsan yihiin oo u dhaqmaan sida dad lacag raba camal oo kale macnaha fanaanka markuu la xiriiro kale inay dhahaan oo kale $200 si $300 si fanaankina uusan awoodin qarashada ay ku xijiyaan qarashadkii uu ku xijiyo fanaankina uusan awoodin musicianada Soomaaliyeed saas iska wada noqdeen inoo suurtagal weysay marka heesi caadiga ah inaan wadno marka hadda intii imaanay Kampala ilaa Nairobi musiga Afrobeat-ka ahaa iyo waxyaabihi baranay iyo waxaas waxay noo fudeeyeen inaan kaalinteena fanaan mar kale dib u soo kicin karno aan nooleyn karno marka taatiinki waxa soo bilownay ahayd hadda 2020 lagu jira ilaa 17 ma loo yaad fanka kaga dayataa aniga wallahi horto hadda ma jiro maanta fanaan Soomaaliyeed oo aan isleeyahay fanka asiga kaga dayo ma jiro hadda ani ahaanteeda ana isku daydo nafteeda ku dayda waxa sameeyanayo wax kala sii dhaxbaxa waxa rab inaan soo saaro waxaan sameeyay wax kala sii dhaxbaxa hadda ma jiro maanta marka fanaan aan dhahayo waa jiraan fanaaniin iska jeclahay heesooda aad dhageysto fanaaniin badan oo hip hop jiro sida Labelin ROX ilkaas qays waa salaama waa legendis laakiin ma jiro fanaan maanta aan ku dayanayo oo aan leeyahay intoodaba midkaas daba gala ma jiro wax aniga aan sameystay aan rabaa micnaha inaan bulshada ka gado bulshadina waxaas ay agtooda hid ay ka noqdaan heesta aad dhawaan soo qaaday oo social media zaid u qabsatay ma waxay jawaab u tahay midii ay waayaha cusub soo qaadeen waa su'aal fiican heestaas Somali Toos waayaha cusub inteesa heesta hadda ayaga aysan soo saarin ka hor ayaa anaga soo saarnay laakiin waxa u soo saarnay qaab communism ahaan already ba 2 bil ka hor ee dadka ka gadmatay oo waxay ahayd hees magaalada gashay ramadaankii dhaxda naga soo galay way noo suurtagelisay inaan video duubno aan YouTube soo dhigno koos ramadaan lagu jiray anagana dad islaam aan nahay markii xaq diiniyana la fiiriyo kadib markuu ramadaanka dhamaaday hooleena videoga iyo hoolihii heesta iska sii bilaabanay waxa soo baxday markii heestan waayaha cusub anagana heesteeni waxay ahayd hees mar hore qorsheysneed oo communismkeeda uu baxay heesti markii ayaga ay soo dhigeen heesta ayaga ay soo dhigeen YouTube-ka iyo anaga heesta aan rabnay inaan soo dhigno YouTube-keena waxay isku aayeen laba heesoo lid anaga marka heesteeni mar hore suuqa gashay 2 bil ka hor ayagana heestoodii hadda ay soo dhigeen waxa isqaadatay marka anaga waqtigeeni aan soo dhigi rabnay heesteena aan YouTube-ka soo dhigi rabnay iyo heestoodii ay soo dhigeen oo lid isku aatiya marka waxay sababtay in ay noqoto jawaab dadka ay u qaataan ee dhahaan waa jawaabtii waayaha cusub markii si loo fiiriyo horto micnaha ereyada anaga hadda ereyada ku heesaayo oo kale horta ani markii hore heesta aan sameeyay waayaha cusub way ka horeysay oo uma sameeyay waayaha cusub laakiin markii ereyadeeda la fiiriyo ku heesaayo iyo ayaga ereyada ay ku heesayaan xoogaa waxay noqdeen kuwa iska hor imaanaya marka bulshadii jasna waxay u qaadatay hees macnaha lidku heesto waayaha cusub wagaag dadka qaar ayaa leh heestan Somali Toos dawladda ayaa lacag ku siisay marun baa warkaas ayadana waa su'aal fiican oo jawaabteeda la rabo heestan dawladda hadda xilka heeso ee Soomaaliya ka taliso wax shaqo iyo shuqul ay ku leedahay ma jirto sinti dhaxda ka duleelo ay ku bixisay ma jirto aniga ahaanteedaba
ma jirto qof xiriir xataa dowladdaas ka shaqeeya ah xiriir isla leenahay oo si qaas ah u wada sheekeysana xataa ma jiro aniga waxaa ah fanaan Afrika iskaaga nool oo meeshan joogo dhalinyarada Soomaaliyeed ku dhex jiro wacyiga waqtigan jiro unbaa heesteeda ka sameeyey dhalinyarada Soomaaliyeed aan usoo bandhigay ayagana way qaateen only waa intaas bas laakiin ma ahan hees anaga lacagna lagu siiyey la dhahay soo qaada ee siyaasadooda ayaga ay ka mid tahay ma ahan waa hees dhalinyarada Soomaaliyeed loo soo qaaday waa hees dhalinyarada Soomaaliyeed loogu talagalay waana hees la qaatay oo mar hore la qaatay waaba 2 bil ka hor la qaatay inta waaya cusbeystooda soo saarin ka hor la qaatay heestan marka ani wax lacag lagu siiyey ma jirto mana dhici doontaba taas aniga qof micnaha dhalinyarada Soomaaliyeed ku dhex jiro oo micnaha muusigaas micnaha maskaxdiisa wax micnaha hip hop iska anfant wixii dhalinyarada micnaha markaas ka dhex guuxay maskaxdooda inay hees ka sameeyo soo saaro wacyi geliyo xumaanta in dhalinyarada iska dhaafaan dhibaatada laga daayo dhalinyarada faraha laga qaado oo horumar ay sameeyaan waxyaabahaas un baa anaga hadda heesteena ka sameynay magacyada qaar ee heesta ku jiro ataaga sameeyay magacyo ayaa dadka waxay u sameysteen si qaldan ay u fasirteen oo way gediyeen Soomaali inta badan waxay yaqaanaan wax markaa soo dhex dhigtid wixii hadii positive ahaayeen way qaadayaan waa la gedinaa negative laga dhigaa hadda wax magacyada ku jirto waa sida Sheekh Shariif oo kale waa sida Farmaajo iyo Qeere siyaadka iyo Sheekh Ciidiid oo kale Sheekh Shariif waxa dada waxay u maleeyaan in aniga Sheekh Shariif aflagaadenayo ama caaynayo heesta anaga aqaadnay waa hip hop dadka inay fahmaan aad u fiicnaa lahayd heesta anaga aqaadnay ma ahan hees caadi ah laxan caadiyana ma saarna heesta anaga aqaadnay waa hees hip hop ah marka ugu horeysa taas la fahmo marka labaad sida u sameeyna dadka ha fahmaan Soomaali toos cadawgina hoos Farmaajo boss khayran double boss qumay qeelisoy qabiileys nigada qumay qeelisoy xataa dada waxay dhaheen Filis ay ugu dan leedahay Filis gabar walaasheeda waay fankaas respect ixtiraam ugu haay iga weyn oo maanta fan ahaan marka la dhaha xataa waqti badan soo heesaysay qumayana ma noqon karto Sheekh Shariifna baabo weeye burburkana daa Sheekh Shariif aabo micnaha wax anaga waxa ka dhiganay heesteen aan ku qurxinayno laakiin ma ahan attack asi ugu dan lahayn oo aan leenahay Sheekh Shariif waa qof xun ee burburka naga daa ma ahan burburka naga daa waxa la leeyahay qof walbeeto dhibaato ku hayso horumarka yarka ee Soomaaliya hadda inay gaartay u baahan tahay okay wanagaag sidee u aragtaa falcelinta ka dhalatay heestada dhawaan wallahi horta ani ahaanteeda falcelinta midna way saameysay midna waa soo dhaweynaya midda aan soo dhaweynayo oo ah magacayga inay kor u qaaday midda ay saameysay oo ah inay ani mucaarad yeeshay aan hore aanan u lahayn ama dad cadow aan hore aan ugu naqarabin inaan cadow aan u naqday oo maanta cidna aysan ii ogeyn dad hadda maanta waxay iska dhaadhicinayaan sida hadda adii weydiiso kale in aniga heesta lacag lagu siiyay dadna ani cadow igu naqdeen si aniga ay u maleeyeen in heesta macnaha Farmaajo iyo Qeere aan u soo qaaday oo macnaha ayaga aan ugu danaaninayo marka falcelinta saameynta ay yeesho kale waxa kamid oo kale dad inay maaragtay social media inay iska soo galaan ayagoona wax xibsin qaaq iska soo dhaan waliba dad fanaaniin waxa arkay erayo haboonin ku hadlayaan laakiin I don't care about me ana sameeyay heesta erayada laxanka wax dhan ana sameeyay horta heestan Soomaali toos waxa ila qayb qaatay laakiin kaafi oo Nairobi ku nool asna fanaan choriska inta kale laakiin erayada hip hopka iyo waxyaabahaas dhan aniga sameeyay cid marka laga weydiinayo ma jirto qaladkeeda iyo saxdeeda qofka kaliya laga wareysanayo waa aniga heestaasna waxa u soo qaadnay dhalinyarada Soomaaliyeed qofkii ka xumaan lahaa wuu ka xumaan karaa qofkii ku farxi lahaayna wuu ku farxi lahaa okay sidee u aragtaa heestaas in laga saaro YouTube wallahi horta way jirtaa heesta in mar laga saaray haddana la soo celiyay haddana mar kale laga saaray waxa xamaasadaan dhihi karaa waa game qurux badan waa ciyaar hadda bilaabatay waa cashar cusub aniga bartay waa sheeko qurux badan oo yar oo YouTube ka hadda maalmaha ka socoto in heesta la saaro la soo celiyo haddana la saaro la soo celiyo marka aniga ahaanteeda heesteeda ani waxaan dhahay way ii gadmatay mar hore ay qaraxday heesta dhalinyarada ani markii hore u soo qaaday in ayaga iskaga daafacaan qof walba oo ayaga cadowgooda ah okay wayna qaateen waa hagaag AK ma jira dhawaan hees soo wado ha heesa badan jiro albumka Soomaali toos way xiriirsan yahay waxa waaye suugaanta way badan tahay waxa waaye madaafiicda way badan tahay lama kala celinayo midba mid kale
way ka daran tahay ma fahantay waa mar sidina loo bartay waana sidina loo arkay waxna laga qaban karo oo ilaahay uuntana ma jiro dadka cadowga nagu ee aan ahaanteeda inacay markaa magac yeeshay oo fanka ah kusoo biiray inacay ayaga la igu go'aayo ani waxa iga bedelayaan ma jiraan waa wadeena heeso cusub oo soo saarayna mar walba tan waa sii kululaynayna ugu dambeyn xageed tigsanaysaa inaad ka gaarto fanka waa maasantahay cabdiwahaabo fanka waxaa rabaa insha allah heerka ugu sareeyo ee fan laga gaaro waxa ugu wanaagsan hadda heena muujadeena way daaran tahay insha allah mana dami doonto waqtigeena qaadanayna fankana meel fiican inaan ka gaarnaa jecelnahay inkastoo wax xaggeena markii la dhaho diiniyan iska fiicneen haddana laag waa entertainment wax dhalinyarada maaragtay iskaga dhex jiraan maanta isku madadaaliyaan iska naqday marka insha allah muusigaas aan sameynayno muusiga dhalinyarada ugu daneyno oo maaragtay ku dhiirigelino oo noqon doona haduu ilaahay raa wax badanna waa sameyn doonaa insha allah saasaan jecelahay haduu ilaahay raa adigoo ka faa'iideysanayo fursadda uu ku siiyay TV-ga Kalsan maxaad la wadaagaysaa dadka ku daawanaya taageerayaashaada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan aad u mahadsantahay Cabdiwahaab adiga iyo dhammaan TV-ga Kalsan taageerahayga iyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta dunida dacaladeeda ay ka joogaan waxaan la wadaagayaa horta dhalinyarada Soomaaliyeed qalbadooda mar hore la dilay maanta waa waxay noqdeen kuwa tahriibi kuwa babaay kuwa dagaalo iyo wax isku dhamaadeen kuwa kale tan waa wax Yurub iyo meelahaas iska joogo qabowgaas iskaga dhacayo oo dalkoodii dadkoodaba hilmaamay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inay dalkooda iyo dadkooda aysan hilmaamin waa kuwa bari madax ka noqon doona dalka oo ayaga maamuli doono waa kuwa caruurtooda macnaha wadanka inay ku abaabiyaan u baahan tahay waa kuwa bari mustaqbalka noqon doono marka inay wixii xumaata ay ka dhiidiyaan wixii wanaaga ay u horseedaan umada kale ayaan kula dardaarmayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan sida heesteeda oo u soo falceliyeen ay meel walba ugu sheer gareeyeen ay meel walba u dhigeen amazing ana yaabay aadaan ugu mahadcelinaa waan salaamayaa one love waan jecelahay meel kasta dunida dacalada ka joogaan dhalinyarada Soomaaliyeed dadka madaxda waxa ka codsanaa dhalinyarada Soomaaliyeed in kaalintooda la siiyo oo waqtigooda la siiyo oo jaaniskooda la siiyo oo ayaga hoggaanka loo dhiibo oo ayaga wax walba laga dhigo oo ayaga loo dhaho noo go'aamiya markaas dhalinyarada dhiirigelin helaysaa kalsooni helaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaan niyada laga jibinaan jeclaa lahaa la kala bahdilin la kala qaadin qabiil loo kala saarin ayaga isku mid wada jamac Soomaalidnimo loogu wada wacaayo meesha warba ka imaado in la xushmeeyo lagu ixtiraamo wuxuu u yahay aan jeclaa lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ha noolaadaan okay aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga ee aad noo soo hortay waxaan ku leenahay hambalyo meeshaas email ka sii sareeso ayaan ku rajeynaa inaad ka gaarto fanka waa hagaag daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan ee si toos ah nagala socday waxa halkaas ku soo afmeermay barnaamijkeena fanka iyo suugaanta kala soconaysay studio TV Kalsan oo ku leeyahay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda oo marti inoo ahaa fanankeena Cabdirasaaq AK Qanciye waxaan ila socodsiinaya aniga oo ah Cabdiwahaab Ibrahim Cabdiwaxid dhanka kaamirada waxaan inoo hayay Samiir Maxamed Bees farsamada waxaan naga caawiyay Maxamed Nuur Aadan intaan kulmi doonno waxaan iskaga sii tagi doonaa heestii Soomaali toos cadawgeena hoos match boss khayr Muqdisho City waaye Hargeysa City waaye Kismaayo City waaye Puntland boqortooyo waaye Galmudug baashak waaye my name AK Qanciye heestada hadda bilawatayo producer Soti Cat on the beat Soomaali toos cadawgeena hoos match boss khayr double boss ma yaqalisay qabilasinaga daash Shariif Baba wayo burburkana daa Soomaali toos cadawgeena hoos match boss khayr double boss ma yaqalisay qabilasinaga daash Shariif Baba wayo burburkana daa sidka waa ka xabsiga hala geeyo xaqisa hala siiyo xubnaha kala jaara xumada hala daya xaqana hala saro halkana noo haya xasan cali khayr xamar ومقال حبت الليذا وكداقي حفدي أنكم دشا حمر بيلا وسلامي أصابت من دماني كولا بسد عفا جباها دول كديقة مدحا هوس جاية قعماها كورو تاقة ربي جينا بلو لابتا ممولكا هالا صحو بلادا هالا سيا نوفد إيا نولد قلينكا هالا قاتا قرياها ناقا ديقة قراحا ناقا دايا قحر دنبدوني منو قلينتا يالا لينين دور كودا هالا سيو اسكولكا يالا حيرين بوغاكتا يالا لابد اسكاشي هالا قالا اسكين
sutaga Somali way midoobi maalin way israaci cadowga u dhamaanay calankan ugu babaanay asabta hal xiro kow laba saddex afar bumbu kolaati Somali toos toos cadowgana hoos hoos haja boss boss qayrana double boss ma yaqali soo qabil sinaga daash shariif aba way burbur kanada Somali toos toos cadowgana hoos hoos haja boss boss qayrana double boss ma yaqali soo qabil sinaga daash shariif aba way burbur kanada dadada dhaxla jabsha shirib kana nootuma dadka no bilaba taariikhu wayna xusi sinjigu waa gob suuradan waa Somali hadalku waa gab xabadaha waan ku dhashay calanku waa buluug xirka fiiri dhulka fiiri nabadu waa nolol noloshuna waa macaan Afrika weydiya Soomaaliya yeetahay siyadka soo xasuusi ciidid way ka yaabay mantaa ka daran madaxdii way tashatay farmaajo wala helay qayrana garabkiisa madaxda wasalaami kuwa maanta nalka shiiday dadkana iga baro wiilka daalan nafta dashay gurida geerarada dambi jidka iskaraacay badaba u qashida musug deganaysa macaan suganta ugu qora farwa weyn soo fahmo Somali way israacaysan kada way dhaqaaqday Somali toos toos cadowgana hoos hoos haja boss boss qayrana double boss ma yaqali soo qabil sinaga daash shariif aba way burbur kanada Somali toos toos cadowgana hoos hoos haja boss boss qayrana double boss ma yaqali soo qabil sinaga daash shariif aba way burbur kanada adada kabilawa illa amara ruuco berber bahdidi wayeen balad wayna buura ma bahi kama jirto galmudu galkacya ka shakay waye hargeysa hiiraan hawada danka hele bilashana fiiri fiiri bawarkooda fiiri gabdhahana fiiri fiiri quruxdooda fiiri hooyo waan ku xisa wana ku iman abada daafa ciidana daafa adan cad wada deegi anu cali sida ciidada waan ku dhasho wana ku iman ila xamar waxa dhahla baata Somali toos toos cadowgana hoos hoos haja boss boss qayrana double boss ma yaqali soo qabil sinaga daash shariif baba Shortcut to the bay.